kulanti wanaagsan mar kale isku soo laabasho haboon intii la socotay wararka gobolka bariga dhexe waxa muuqanaya dawladda Washington inay haatan bilowday dagaal xoogan oo jahooyin kala duwan ay uga qaadayso wadanka Iran iyadoo magaalooyin halbowle iyo istiraatiiji ah ay la kulmayaan weerar xoog leh magaalada lagu magacaabo Shiraz ee wadanka Iran ayaa haatan lagu soo waramaya in ay la kulmayso duqeyn xoogan oo uga imaanaysa dhinaca wadanka Iran wakaalada wararka ee Faris ayaa warinaysa in la maqlay qaraxyo waaweyn oo xoogan oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Shiraz iyadoo macluumaad hore soo baxaya ay tilmaamayaan in la weeraray goobo ku yaala gudaha magaaladaasi ciidamada ilaalada kacaanka Iiraaniyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay u muuqato duqeymuhu in ay aad u xoogan yihiin madaxda wadamada Kuwait, Urdun iyo sidoo kale dalalka Bahrain ayaa ku waramaya in wadamadooda maanta ay la kulmeen duqeymo xoog leh oo uga imaanaya ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran weeraradan ayaa waxay yihiin kuwa ugu adkaa marka la fiiriyo dhacdooyinkan iyo waliba goobaha bartilmaameedka ah ee la beegsaday kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen ayaa ku dhawaaqay in ay mamnuuceen maraakiibta dawladda Sacuudiga ay leedahay ama u soconaya wadankaasi inay ka tallaabaan marinka Baabul Mandab dagaal culus oo kale ayaa ka bilaabanaya gobolkan iyadoo kooxda Xuutiyiintu ay bilaabeen bartilmaameedsiga dawladda Riyaad tan waxay ku soo aadaysaa kadib markii weerar lagu qaaday diyaarad dawladda Iran ay leedahay oo toddobaadkii hore doonaysa inay ka degto magaalada Sanca hasaatee markii ciidamada cirka ee Sacuudiga ay duqeeyeen garoonka magaalada Sanca u wareegtay magaalada la yiraahdo Al-Hudayda oo halkaasi ka degtay kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen ayaa waxa ay tilmaameen in ay ku dhawaaqeen baalayri in ay mamnuuceen isu socodka maraakiibta la xiriirta Sacuudiga isla markaana marinka istiraatiijiga ah ee Baabul Mandab maraysa iyagoo ku eedeeyay boqortooyada Sacuudiga in ay sii wado waxa ay ku tilmaameen godoominta wadanka Yemen afayeenka dhinaca militariga ee kooxdaasi oo lagu magacaabo Yahya Saree ayaa waxa uu sheegay bayaan uu soo saaray in lagu mamnuucay tallaabo lagu saleynayo mabda'a ay ugu yeereen godoominta looga jawaabayo godoominta kale isagoo xusay in mamnuucidan ay dhaqan gashay isla markii lagu dhawaaqay oo maanta ahba sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada Xuutiyiintu ay diyaar u yihiin inay dhammaan fursadaha suuragalka ah ay sameeyaan iyagoo ka degaya haddii Sacuudiga uu qaado tallaabo military oo ballaaran iyagoo jawaab looga dhigi doono baa la yiri weerar kale oo xoog leh godoonkan ayaa imaanaya iyadoo xiisada u dhaxaysa Xuutiyiinta iyo dawladda Yemen ee taageerada ka helaysa isbahaysiga Carabta ee Sacuudiga uu hogaamiyo ay cirka isku sii laashay xiisada ayaa sii xoogaysatay kadib markii shirkadda diyaaradaha ee Mahan Air ee dalka Iran laga leeyahay ay laba duulimaad u dirtay wadanka Yemen bishii Luulyo mid kamid ah diyaaradaha ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee Sanca halka duulimaadka kale loo waciyay magaalada la yiraahdo Al-Hudayda kadib markii lagu waramay in dhabaha diyaaradaha ee Sanca garoonkeeda ku yaala la duqeeyay Xuutiyiinta ayaa ku eedeeyay Sacuudiga weerarkan waxaana ay ku dhawaaqeen dhankooda inay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo aad u xoogan dhinaca kale golaha madaxtooyada ee Yemen ee uu hogaamiyo Aydrus al-Cilmi ayaa ku adkaysanaya in aan loo ogolaan doonin diyaarad shisheeye ama duulimaad caalami ah inuu ka dego garoomada ku yaala wadanka Yemen iyagoo aan fasax laga haysan dawladda wadankaasi dawladda Yemen ee isbahaysiga Carabtu ay taageeraan ayaa hadda waxa ay muujinaysaa in tallaabooyin xoog leh ay qaadayaan maalmaha soo socda laba markab ayaa lagu soo waramayaa maanta in lagu weeraray marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz iyadoo halkaasi la soo sheegayo inay ka kacayso uuro xoog leh iyo waliba dhibaatooyin maraakiibtaasi soo gaartay shirkadda maraakiibta ee Greega laga leeyahay ay Tanacom Tankers ayaa waxa ay sheegtay in laba kamid ah maraakiibta ay maamusho lagu weeraray waxyaabo qarxa oo aan wali la garan halka ay ka yimaadeen xilli ay marayeen xeebaha saldanada Camaan ee wadankaasi Carabta shirkaddu waxay sheegtay in maraakiibta shidaalka qaada
iyadoo ay leedahay oo wata baa la yidhi calanka Malta ay haleeleen 2 madfac kuwaasi oo sababay in uu dab ka kaco qolka matoorada taasi oo sababtay shaqaalihii markabka in ay isaga baxaan halkaasi war-saxaafadeedka ayaa sheegaya in shirkadu ay soo saartay ayaa lagu tilmaamay in kabtanka markabka uu amray in markabka laga daadgureeyo dhammaan shaqaalaha kadib markii la howlgeliyay nidaamka daminta dabka halkaasi ka dhashay Tynocom Tankers ayaa sidoo kale xaqiijisay in ciidamada iyo hay'adaha gurmadka ee Cumaan ay badbaadiyeen dhammaan shaqaalihii maraakiibtan saarnaa isla markaana ay si nabad ah looga qaaday xeebta halkaasoo iminka lagu badbaadinayo oo xaaladooda lagula socdo ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ayaa waxa ay soo jeediyeen hanjabaad culus oo ka dhana wadanka Mareykanka waxana ay tilmaameen in tallaabooyin ay ka qaadi doonaan maraakiibta amaradooda diida ee isticmaala marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz sida ay doodooda maanta u dhigeen afayeenka ciidamada dawladda Iran ayaa waxa uu sheegay in ay wadan kasta oo la shaqeeya Mareykanka isla markaana taageera waxa uu ku tilmaamay cadawga Iran uu la kulmi doono cawaaqib aad u xooggan oo ku saabsan isticmaalka marinka Hormuz afayeenka waxa uu sheegay in aan la ogolaan doonin in dal kasta uu isticmaalo marinkaasi Hormuz si uu uga gudbo hub ama agab military oo loo adeegsan kara baa la yidhi weerar ka dhana wadankaasi Iran waxa uu sidoo kale xusay in dalal kale ay uga faa'iideysan jireen marinkaasi Hormuz ay u dhoofiyaan shidaalkii badeecooyinkooda ganacsiga balse lagu eedeeyay in qaar ka mid ah ay hadda garab siiyeen cadawga Mareykanka waa sida uu doodiisa u dhigay afayeenka waxa uu sidoo kale ku hanjabay in wadan kasta oo la shaqeeya Mareykanka ama taageera cadawgiisu ay la kulmi doonaan dhibaatooyin marka ay isku dayayaan inay ka gudbaan marinkaasi Hormuz ugu dambeyntii waxa uu sheegay in haddii aan la xaqiijin awoodda buuxda ee la cabsi gelinayo dalka Iran ay suuragal tahay in dhibaatooyinka lagala kulmi karayo ay aad u ballaaran tahay gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran Mohammad Baqir Ghalibaf ayaa waxa uu ku dhawaaqay Mareykanku in ay labacayn wadaan oo ay hadba doonayaan dhibaatooyinka ka taagan gobolka bariga dhexe in ay sii xoojiyaan hadalka Ghalibaf ayaa ku soo aadaya xilli xiisadu ay sii kululaanayso marka la joogo gobolkaasi bariga dhexe gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran Mohammad Baqir Ghalibaf ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu sii wado keenista qalab iyo awood military oo cusub oo gobolka bariga dhexe isagoo sheegay in arrintaasi ay ka hor imaanayso hadallada Washington ee sheegaya in ay dooranayso in colaadda gobolka la dejiyo oo dhinacaasi ay ku baaqayaan wada xaajood Ghalibaf ayaa sheegay in Mareykanka uu wali dhinac ka sheegayo in uu doonayo in dagaalka la joojiyo halka dhinaca kalena gobolka uu keenayo agab military oo dheeraad ah taasoo dawladdaasi aysan aqbali karayn sida doodiisa u dhigay waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Mareykanka inay si qaldan u qiyaasayso awoodda iyo waliba garashada Iran isagoo sheegay dawladda Iran inay si wanaagsan u fahansan tahay waxay ku tilmaantay xeeladaha iyo qorshayaasha Mareykanka ee ka dhanka wadankaasi gudoomiyaha baarlamaanka ayaa intaa ku daray in Iran ay isku dayayso sidii ay ula tacaali lahayd tallaabo kasta oo ay qaadi karaan Mareykanka iyo xulafadiisa isagoo xusay in ficilada dhabta ay yihiin kuwa lagu qiimeeyo sheegashooyinka siyaasadeed halkii hadallo kaliya wax lagu eegi lahaa hadalkani waxa uu ku soo aadayaa xilli xiisada dagaalka iyo waliba cabashada taagan ay u muuqato inay aad uga sii darayso madaxweynaha wadanka Iran ninka la yiraahdo Mas'ud Pezeshkian ayaa ku dhawaaqay wadankiisa inaanu ka tanaasuli doonin waxyaabaha la xiriira madax banaanidiisa iyo waliba xuquuqaadka uu sida goonida u leeyahay wadankaasi madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa waxa uu sheegay in dawladda Iran aysan wax tanaasula ka samayn doonin xuquuqdeeda danaheeda qaran iyo mabaadi'deeda gaarka ah isagoo la ka hadlayo qodobo ku jira heshiiskiisa afgaradka ee dhawaan la gaaray Pezeshkian ayaa waxa uu sheegay in 14 qodob ee heshiiska is-afgaradka ay ku jiraan wax ka tanaasulaya danaha Iran isagoo xusay qodobada intooda badan inay faa'iido u yihiin dalkiisa isla markaana aysan u adeegeen hal dhinac oo Mareykanku uu leeyahay
madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in xilligan loo baahan yahay midnimo qaran wadajir iyo waliba go'aan ku salaysan talo iyo wada tashi dhaxmari karaya baa layiri dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranka Iran waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalada casriga aysan ku koobnayn baa layiri gantaalo iyo weerar military oo kaliya isagoo Hussein Iran uu ogsoon yahay baa layiri in shacabka ay ku qasbi karin in ay isdhiibaan dowladdaasi Mareykankana arrimeeda la fuliyo Basashkian ayaa sheegay in cadaadiska dhaqaale uu dhaawici karayo golaha militariga iyo kalsoonida bulsho ee dowladda isagoo tilmaamay in Iran ay ku jirto xaalad dagaal sidaas darteedna dalka lagu maamuli karin habab hore oo caadi ahaa madaxweynaha waxa uu sheegay in go'aanada waaweyn ee dalka ay tahay in ay taageero ka helaan dhammaan hay'adaha maamulka ee dowladda isagoo ka digay haddii aan la helin isku duubni dhibaatooyinka soo wajahi karaya nidaamkan ugu dambeyntii Basashkian waxa uu sheegay in Iran uu isku mar u baahan tahay baa layiri ka hortagga weerarada hanjabaadaha iyo waliba shirqoolada ay dhinacan kale ay hadda ishayaan ay u dajinayaan mid kamid ah xildhibaanada nidaamka Israa'iil ee ku jira baarlamaanka loo yaqaan Knesset ayaa waxa uu tilmaamay in xiisadda ka dhaxaysa Israa'iil iyo Iran ay sii kordhi karto toddobaadyada soo socda suurtagalkana uu yahay in dowladdaasi Iran ay la kulmi karayso nidaamka Israa'iil weerar ka yimaada xildhibaan Moshe Saada oo ka tirsan xisbiga Likud ee Israa'iil ayaa sheegay in xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Israa'iil ay u muuqato mid sii kordhaysa isagoo sheegay in la filayo in xaaladda ay cirka isku shareerto inta lagu guda jiro toddobaadkan Saada ayaa sheegay in saraakiisha Israa'iil ay si dhow ula socdaan hadallada ka imaanaya Iran dhaqdhaqaaqyada hub aruursiga iyo dagaalada shidaalka ee hawada taasi oo muujinaysa in ay tahay tallaabooyin military oo gobolka saameyn ku yeelan karta si kastaba ha ahaatee xildhibaanku waxa uu sheegay in aan weli la cadeyn buu yiri haddii xaaladdu ay si toos ah u saameyn doonto Israa'iil waxa uu ku dooday in Iran aysan weerar ku qaadi doonin Israa'iil sababtoo ah sida uu sheegay inay ka baqayso awoodda militariga ee nidaamkiisa isla markaana ay ka niyad jabtay weerarada tooska ahaa ee halkaasi ka dhacay hadalladan ayaa ka turjumaya in Israa'iil ay hadda isku diyaarinayso weerar iyo waliba tallaabooyin kale oo cusub oo ka dhana dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga dhinaca kale wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu ku dhawaaqayaa in Mareykanka ay suuragal tahay toddobaadyada soo socda in uu bedelo xeeladihiisa dagaalka isla markaana uu si weyn u weeraro nidaamka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran wargeyska caanka ee ka soo baxa dalka Mareykanka ee The Washington Post oo xiganaya saraakiil military oo aan magacooda la shaacin ayaa sheegay in Mareykanka uu qorsheynayo in uu ballaariyo howlgalkiisa militariga ee ka dhanka ah dowladda Iran sida laga soo xigtay waaxda dagaalka ee Pentagon-ka ayaa kordhinaysa tirada diyaaradaha militariga ee loo dirayo gobolka iyagoo qayb ka ah baa layiri diyaar garowga suurtagalka ah ee weerar kale oo dheeraad ah isha warbixinta waxay sidoo kale sheegaysaa in ballaarinta howlgalka la filayo inuu noqon doono mid xadidan sabab la xiriira hoos u dhaca kaydka gantaalaha cirka rasaasta dowladda Mareykanka iyo waliba caqabadaha ku saabsan dhisidda ciidamo kale oo dheeraad ah oo gobolkan ka howlgala sargaalkan ayaa intaasi ku daray in awoodda hadda jirta aysan ku filnayn in si ammaan ah loo sii wado howlgallada muddo dheer isagoo sheegay in uu rumaysnayn in aqalka cad uu si buuxda uu hadda u gaari karayo tallaabooyinka uu u baahan yahay warbixintan ayaa dhammaanteed waxay muujinaysaa sida dowladda Washington ay uga go'an tahay dagaaladan inay sii socdaan